السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مركل أصحابي kanaalkeena ogaal cusub maanta waxaan dhamaystiri doonaa qisada ninkii lagu magacaabay John McAfee ninkii ka yimi programmerka iyo nin leh shirkado waaweyn isla bedelay mid kamid ah maamulayaasha maamula kooxaha maafiyada noloshiisana ay ka buuxaan dhacdooyin badan oo qariib oo aad u yaab badan dabcan qofkaan soo daawan muuqaalkii horena si aad u wada fahanto soo daawo qaybtii koobaad waxaad ka heli kartaa dhanka hoose ee description-ka kadib dhammaan dhacdooyinkaas oo dhan uu sameeyay McAfee aan ku soo sheegnay halka hore ee uu ka sameeyay magaaladii iyo tuuladii uu deganaa arrinkiisii wuxuu gaadhay xukuumaddii Belize waxayna dareemeen in ninkan arrinkiisa ay wax ka khaldan yihiin maxay tahay sababta ninkan Mareykanka uga dhistay meeshan kaynta cidlada dhismayaasha oo sidoo kalena uu keenay meeshan dadkan hubaysan ee intooda badan ay yihiin dadka maafiyada iyo kuwa la midka waxayna u malaysay xukuumaddii Belize in ninkan uu meeshan ku sameeyo darooga iyo maandooriyaal sadarteedna waxa loo soo diray meeshii ciidan hubaysan waxayna xoog ku galeen dhismayaashii laakiin kama heleen halkaas wax darooga ama maadaama mamnuuc oo lagu farsameynayo halkan laakiin haddana waxay ka heleen meeshii hubaan sharci ahayn oo badan oo yaala halkaas sababtaas awgeedna waa la soo xiray McAfee wuxuuna xidhnaa hal maalin oo kaliya waana la iska soo daayay inta kadibna waxa ku sii abuurmay McAfee cabsi aad u badan wuxuuna aaminay in dawladda Belize ay doonaysay inay disho ay qaadato lacagtiisa sadarteedna wuxuu sii badiyay oo sii labanlaabay ciidankii iyo hubkii yaalay agtiisa kadib dhacdooyinkaas oo dhan gabadha ay wada lahaayeen shirkadda ee lagu magacaabay Allison ayaa waxay u aragtay in arrinku uu faraha ka baxay oo aanay xaalkan ku jiri karin oo aanay suurtagal ahayn in xaalka sidan ay ka gaadho guul caafimaad waxaana go'aansatay inay ka baxdo shirkadda ninkan oo ay ka tagto goobta marka ay doontay inay u sheegto McAfee inay ka tagayso halkanna sida iyadu sheeganaysa wuxuu siiyay maandooriyaal kadibna uu kufsaday I told him I had a headache and he brought me he went into the other room and he brought me 2 pills and a glass of orange juice laakiin McAfee dhankiisa isagu uu diiday eedaynta inay u soo jeedisay gabadhani wuxuuna sheegay in gabadhan ay gabi ahaanba tahay mid waalan wuxuuna sheegay inuu isagu ka eriyay uu ka cadhiyay shaqadii markii uu arkay in aanay si fiican u shaqaysanayn Allison Adonicio, a mad woman. A mad woman? A mad woman. Well, she claims that you raped her, drugged her and raped her. Well, she can claim whatever she likes. dabcan labadooda ma jirta cid la rumaysan karo mid kastaba wuxuu sheeganayaa sheeko ka duwanka kale iyagoo aan haysan wax caddeyn ah laakiin isku soo duuduuba shirkadoodii way gabagabowday oo wax xidhantay intaa kadibna wuxuu ku soo laabtay McAfee gurigiisii ku yaalay badda markii hore wuxuu joogay meeshii kaynta ahayd ee uu ka samaystay shirkadda laakiin wuxuu ku soo laabtay gurigiisii uu markii hore gatay ee ku yaalay badda dhinaceeda gurigiisan uu yimina wuxuu ku yaalay meel ay degan yihiin wuxuuna la yimi meeshii dhammaan hubkiisii iyo ilaaladiisii iyo dhammaan wixii uu ku dhaxaystay kaynta dhexdeeda arrinkaasina wuxuu ahaa arrin ay dhibsadeen oo diiqad geliyay dadkii la jaarka ahaa gurigiisan sidoo kalena wuxuu haystay McAfee 9 ay oo iyaguna qaylay iyo dhib ku sameynayay dadkii deganaa meesha mid ka mid ah raggii la jaarka ahaa McAfee oo lagu magacaabayay Greg Fowl ayaa wuxuu ahaa mid aad u dhibsaday aydan iyo waxaan uu wata McAfee wuxuuna mar u yimi ninkani McAfee isagoo u sheegay in haddii uu wax ka qaban waayo xaalku siduu yahay uu rasaas ku dhafan doono aydiisa oo dhan intaa kadibna muddo aad u kooban marka laga joogo hanjabaadda uu ninkaasi u hanjabay McAfee wuxuu helay McAfee dhammaan aydiisii oo la sumeeyey oo dhintay dabcan jaarkiisa oo dhan waxay ahaayeen qaar dhibsaday aydan laakiin ninka ugu dhow ee looga shaki karaa waa ninka lagu magacaabo Greg marka la eego hanjabaadii uu bixiyay uu siiyay McAfee 3 maalmood oo kaliya kadib sumayntii aydanna waxa la helay ninkii lagu magacaabayay Greg oo meyd oo rasaas lagu dilay marka arrinka kaliya ee macquulka qof walba uu ku fikirayo waa in McAfee uu dilay ninkan isagoo ka aarsanaya oo uga aarsanaya wixii uu ku sameeyay aydiisa ciidankiina waxay aadeen markiiba gurigii McAfee si ay u soo qabtaan laakiin arrinka la yaabka lagu wuxuu ahaa McAfee ma ahayn mid jooga gurigiisa waxay ka raadiyeen meel walba oo ka mid ahayd gurigiisii laakiin ma helin raadkiisii wuuna qarsoomay McAfee laakiin arrinka ka sii yaabka badan wuxuu yahay McAfee wuxuu ku dhuumanayay ciidii ama carradii taalay gurigiisa hortiisa wuxuuna ku haasay jirkiisa oo dhan ciidii isagoo madaxiisiina geliyay kartoon hadalkaasina waa sida uu isagu sheegay laakiin su'aashu waxay tahay muxuu uga dhuumanayay ninkan ciidanka haddaanu waxba samayn siduu sheegayna wuxuu ahaa mid ka cabsanaya in la ikhtiyaalo oo lacagtiisana la qaato wuxuuna ahaa mid diidan gabi ahaanba inuu ku lug leeyahay dilka ninkan lagu magacaabo Greg Did you kill Greg Fall? I barely knew the man, and why would I kill him? He was a neighbor that lived 200 yards down the beach. Do you really believe that this is a vendetta by the government of Belize to take you down and kill you? Absolutely so. laakiin ciidankii dalka Belize waxay sheegeen inaanay ninkan rabin inay xidhaan ay kaliya ay rabeen inay su'aalo u weydiiyaan ugu dambeynna McAfee sidii uga dhuumanayay ciidankii waxa waday inuu ka baxo wadankii Belize oo uu aado dawlad yar oo lagu magacaabo Guatemala oo iyaduna ku taala Ameerikada dhexe
laakiin markii uu sidaas u galay wadankii waxa qabtay oo xidhay ciidankii Guatemala iyadoo sababta loo xidhayna ahayd inuu ku soo galay wadanka qaab aan sharci ahayn xitaa markii la xidhayna waa la duubay oo wuxuu ahaa mid waraysi TV siinaya. Where are they taking you, John? Whoa. Wait. John, where are you going? To jail. When will you be out? waa la xidhay McAfee wuxuuna galay xabsiga laakiin xabsiga wuxuu ahaa mid ku jooga qaab aan dhib lahayn xitaa waxay ku dhex keeneen xabsigii kombiyuutar oo wuxuu ahaa mid ku dhex isticmaalay internetka halkaas sababtaa xukuumadda Guatemala may u arkayn ninkan nin halisa kaliyana waxay u xidheen wuxuu ahaa inuu si sharci darra ku soo galay wadanka. xukuumaddii Guatemala waxay ka fikirayeen muddo arrinkiisa iyadoo ugu dambeynna soo saartay wasaaradii dibadda ee wadankaasi in lagu celiyo halkii uu ka yimi oo ahaa dalka Belize. markii uu soo baxay go'aankaasina wuxuu isku tuuray McAfee dhulka wuxuuna iska dhigay sidii Mexico isagu xanuunsaday oo ku soo booday wadna xanuun waxaana loola carreeyay si degdeg ah loo geeyay cisbitaalka. dabcan markaad aragto ninka muuqaalkii laga duubay waqtigaas si fiican ayaad u fahmaysaa in waxaan oo dhan ay yihiin jilin uu samaynayo. sidoo kale markii lagu sameeyay baaritaankii waxa la ogaaday in aanu ninkan hayn wax xanuuna caafimaadkiisuna uu taam yahay oo uu yahay mid dhammaystiran. laakiin arrinkan uu sameeyay wuxuu ka dhigay inuu muddo dheer ku dhex qaatay cisbitaalka iyadoo ugu dambeynna arrinkiisa ay soo dhex gashay xukuumadda Mareykanku. dowladdii Guatemala waxay soo saartay go'aan kale oo ah in loo tarxiilaa ninkan dalkiisii Mareykanka. su-aashuna waxay tahay McAfee siduu sheeganayay ma wuxuu ka cararayay xukuumadda Belize isagoo ka cabsanayay inay dilaan oo ay iqhtiyaalaan xoolihiisana ay qaataan mise wuxuu ka hordayay uu ka cararayay inuu ku shaqo lahaa dilka ninkii lagu magacaabayay Greg iyo in cadayma lagu helo sidaasna lagu xidho oo ku gala xabsiga. wuxuu ku soo laabtay McAfee dalkiisii Mareykanka sanadkii 2013 wuxuuna bilaabay waqtigaas inuu la shaqeeyo ururo saxaafadda isagoo kala shaqeynayay samaynta buugaag iyo dokumentari ay ka sameynayeen sheekadiisa. mid ka mid ah waxyaabaha la yaabka badan ee aan laga filayn uu sameeyay ninkan ayaa ahaa inuu si soo sharaxay madaxtinimada dalka Mareykanka wuxuuna soo sharaxay sanadku markuu ahaa 2016 intaa kadibna sanadadii ku xigay wuxuu ka shaqeeyay waxyaabo kala duwan. laakiin dhibaatada ugu weyneed ee wajahaya ninkan waxay ahayd ka baxsashada bixinta cashuurta wuxuuna ahaa mid ku faanaya arrinkan oo ka sheegaya afkiisa in aanu bixin sanado badan cashuur oo aanu bixin doonin weligii. I have not paid taxes for 8 years. I've made no secret of it. I have no intention of doing so. Come and find me. Not illegal. dabcan arrinkan dalka Mareykanka gudihiisa wuxuu ka yahay arrin aad u halis oo aad ku mutaysanaysa ciqaab weyn sadarteedna wuxuu go'aansaday inuu ka baxo dalka Mareykanka mar kale isagoo safray meelo badan oo ay ka mid yihiin jasiiradaha Bahama, Venezuela, Cuba ilaa ugu dambeyn lagu qabtay isagoo jooga madaarka dalka Spain bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 Mareykanka ayaana amray in la qabto ninkaas meel walba oo lagu arko waxaana ku xidhnaa halkaas dhowr bilood ilaa laga gaadhay bishii Julaay ee sanadkan 2021 waqtigaas oo ay ku xukuntay xukuumaddii Spain McAfee in loo dhiibo dalka Mareykanka. laakiin dhowr saacadood kadib go'aankaas waxa loogu tagay McAfee oo meeyda qolkii uu kaga jiray xabsiga waxayna ugu tageen halkaas isagoo ciijisan. dhammaan cadeymuhuna waxay sheegayeen oo ay tilmaamayeen inuu isdilay ninkani sidoo kalena baaritaankii caafimaad ee lagu sameeyay jirkiisu wuxuu sii xoojiyay midaas. laakiin waxaa jirta aragti kale oo odhanaysa McAfee muu isdilin ee waa la dilay. arrinka xoojinaya aragtidanna wuxuu yahay qoraal iyo posti uu soo qoray McAfee sanadkii 2019 qoraalkan oo ku sheegay in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanku ay u soo qoreen waan ku soo soconaa McAfee waxaanan ka dhigi doonaa inaad disho naftaada wuxuuna sii raaciyay qoraalkaas haddii aad aragtaan anoo gooyay naftayda anigu maan isdilin ee waa la dilay. intaas aynu ku eegahay daawadayaal muuqaalkeena maanta hayloban hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto subscribe na saar haddaad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub waad mahadsan tahay.